iyadoo muddooyinkii u dambeeyay khilaaf badan ka taagnaa shirkadaha keena koontiinarada takada magaalada Berbera iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland ay wasaaraddu doonaysa inay dhimaan lacagaha ay shirkaduhu qaadaan ayaa waxa saaka xukuumadda Soomaaliland ay xidhay 8 qof oo isugu jira maamulayaal iyo shaqaale iyo sidoo kale waxay xidhay xafiisyada ay shirkaduhu koontiinarada keena Soomaaliland ay ku laayeen magaalada Berbera waxaana Honkebel TV u xaqiijiyay 8 qof ee shaqaalaha xadhigooga isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka سعيد جامع وبري waxaan ku xaqiijinay warkaas inaanu saaka soo xidhnay shantii xafiis ee wakiilada maraakiibta ama shipping agencies ay ku lahaayeen magaalada Berbera tirada xidhanay waxa weeyaan 8 kin maamulayaasha xafiisyada oo markaa shaqadii ku guda jira oo waday inay baal maraan digreetada wasiirka oo ku jiray qiimihii hore dhinaca kale telefishinka caalamiga Honkebel TV xiriiro kala duwan la sameeyay wakiilada maraakiibta koontiinarada keena Soomaaliland ayaa weydiiyay sababaha ay fulin waayeen wareegtadii ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland waxayna sheegeen in markii wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland uu qoray wareegtada ay shirkaduhu u gudbiyeen wasiirka cabasho la xidhiidha qiimaha iyo lacagaha ay ka qaado shirkadda maamusha takada magaalada Berbera ee DP World waxayna sheegeen cabashadaasi wasiirku ka aqbalay waana noo sameeyay bay yiraahdeen wasiirku muddo kordhinta iyo sidoo kale cabashadeeda uu wasiirku nala soo eegi doono waxayna ballankaygu ahaa wasiirka markuu cabashadeeda nala soo eego in dib la isugu soo noqdo waxna la isla saxo waxaana saaka ka warhelnay bay yiraahdeen xafiisyadeedii iyo shaqaalihii oo ciidanka booliska magaalada Berbera ay xidheen waana sida hadalka u dhigeen wakiilada maraakiibta keena koontiinarada takada magaalada Berbera Sadiq Arab Saleeban telefishinka caalamiga Honkebel TV magaalada Berbera adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida